nagagalayn waan diidanay hubka muuqda iyo uurkooladaba waan diidanay dabnaa darasal iyo beellada dirkiga waan diidanay damac waalanoo dadka lagu wadana waan diidanay dabnaa darasal iyo beellada dirkiga waan diidanay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي نحرسي ونبتقلي بها النسيو ومضى إذا غير جبوتي حكومة إذا غير جبوتي مدحوينها إذا غير جبوتي مدنا إسماعيل عمر قيله سادو لنتهين بقى وأنا آدن قي سالة آراء وحلقة سهلي ولا لها يوحان دونيا إن أنتلو sida ani ila tahay aan soo sheego waan aamusi kari waayay waxaan aamusi kari waayay waxaan rabaa in dalku jiro waxaan walaalahayow ka arkayno meediyaga baryahana ka arkayn maalmahan dambe waa wax islaam iyo gaal cid kasta oo indhaha saartay ka naxayso sida fuaad loo galayo iyo sida loola dhaqmayo cid qarsatay ahaydaa iyo lala ogaaba aniga wallahi dhib badan bay gaadhay walaal dhibtaa badan oo ma aragtay aan noqoto galoonkayga oo aniga la igu dambeysiyay oo qof kale la igu bedelay magaciisii ninka la igu bedelayna ma jeclin aan sheegay magaciisa sababta waa ilaahay baa wax bixiya waan ku samray waan iska maaragtay shaqaysanay haddana waxa dhacday maaragtay sidii iyadoo ay tahay inay maaragtay diyaaradii baa laga joojiyay marka diyaaradda waxa lagu wadaa amba komodo booq amba co-pilot labadaba midba ma wadeen waan iska fadhiyay xerada haddii aan maalin saacad haddaan hafsaamo waa la xidhayay waa lagu xidhaa la guurinayay xerada amba gaadh baa tahay 2 cisho ganaaxa marka waxaasoo dhan anoo dusha saaranaya ayaa haddana mushaarkayga igu yimiday wallahi mushaarkayga markuu igu yimiday waxay igu noqotay argagax bay igu noqotay bishii saddexaad 2019 bishii kowdii mushaarkii soo dhacay baan ka waayay banka kabacdi markaan ashkata tagay waxaan u tagay ninka ugu sareeya xagga ciidanka security military oo ku shaqalay waxyaalaha khilaafka waxaan ku yiri Colonel Maxamed Casawi baa la yiraahdaa arrinkayga markuu maqlay wuxuu igu yiri arrinkan wax dhici kara ma aha ciidanimadana kuma jirto sida darteed waxaan u yeedhanaa ninka mushaarkaaga bedelay ee Commando Aadan Abdiraxmaan Sheer markii loo yeedhay wuxuu yiri fuaad arrinkiisu waa arrin aniga baxsan waa isaga Colonelka ka dhaxaysa ee Colonelkiisa uu tago soo bariyo wallahi bariya ilaahay baa lagu hoos galay waxaan yiri war marxaba waa ku samray ila maaragtay waxaan soo gaarnay bishii 8aad kowdeedii 2019 waxa laga jaray kooraankii baa laga jaray aqalka waxaan yiri bal u tag hadaba aqalka ugu tago maanta bay soo stig oo cagaa qabso marka waxaan moodayay qof bilaadan aan moodayay oo maaragtay wanaaga aad sameysay waxaan lahaa wuxuu masaxi colaad oo dhan masaxi markaan aqalkii ugu tagay waxaan ku yiri walaalkay wixii dhacay way dhaceen isaamax baan doonayaa inaad xaggayga ka ahatid adna xagga ka ahaado mishaarkaygana aad ii soo celisid sababtoo alla idhinkii baa aqalka laga jaray waana buka wuxuu igu yiri soco waana ka soo fikiray waan eegaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي نحرسي ونبتقلي بها النسيو ومضى إذا غير جبوتي حكومة إذا غير جبوتي مدحوينها إذا غير جبوتي مدنا إسماعيل عمر قيله سادو لنتهين بقى وأنا آدن قي سالة آراء وحلقة سهلي ولا لها يوحان دونيا إن أنتلو sida ani ila tahay aan soo sheego waan aamusi kari waayay waxaan aamusi kari waayay waxaan rabaa in dalku jiro waxaan walaalahayow ka arkayno
meediyaaga baryahan aan ka arkayn maalmahan dambe waa wax islaam iyo gaal cid kasta oo indhaha saarta ay ka naxayso sida fu-aad loo galayo iyo sida loola dhaqmayo cid qarsatay ahaydaa iyo lala ogaaba adduunyadu maanta saan arkayno ninka America ku dhintay ee quraatay adduunkii oo dhan baa ka sara kacay waa cadaalad xumo waxaad ummadda kicisay waa cadaalad xumo waxay ka caroodeen dagaalka inta lagu xiriiray waa cadaalad xumo ummadda iyo dhaqaalaha xitaa baabiye marka annaga qiimaha uu Fuaad noogu fadhiyo haddii si la eego annaga aad buu u weentay Fuaad qiimahu noogu fadhiyo kaana waa nin la mid ah weeyaan keeni inaga sidaa u dilayna marka waxa weeye dalka anagu waxaan filaynay ama waxaan ka cabsoonaynay in dibadda lagaga soo duulo in maarataanay la sokeen diro in balaaya naga dhex qaraxdo oo maarataanay anagu isku gubano iskamaanaan eegaynin in anagu cadaalad xumo isku samaynayno oon saas ku gallo si aan intoon kala cadhoonno isku cadaabno war waxa weeye dalku inuu naga baabaa ma rabno inuu naga dumo ma rabno inuu maatideenu baaba'da ma rabno inay adduunka u kala kacdo ma rabno dalalkaan ku baqan lahayn ma jiraan hana dumnina walaalahayow ciddii waxaa ka dambaysa hana dumnina aabbaha dalkow waxaan kaa codsanayaa ilaahay ha kula jiro adig iyo inta ku raacsan bay kula shaqaynaysa ee wanaagga doonaysa ilaahay hani garab galo sidani si ka wanaagsan sameeya Fuaad haddii uu dambi galay nin kastoo dambi gala xeer baa waddanka u yaal inaa xeerkaa lagu qaado weeye inuu ilmihiisa arki kari waayo maaha inuu xaaskiisa arki kari waayo maaha in maaragtay meel ay daranya ka muuqata la dhigana maaha iyuu ka dhimanayaa aduu kaa dhimanayaa waa garabkaagii waxa saa u dhimanayaa waxa weeye dalka han wada ilaashano Ismaaciil Cumarow nin wanaagsan baa tahay waan ku garanayaa qalbigaaga waan garanayaa sidaad ahaan jirtay qofkaad ahaydna waan garanayaa kullay kii baa tahay ilaahay ha ku garab gale nidaamkan maanta socda iyo sidan dadka loo galayo oo fiirso dibna waxaa maarataana in loo eego weeyaan Fuaad xaqiisa ha la siiyo dambiguu galana ha laga jaro daranyada iyo foolxumada iyo sida loo bahdilayana ninna kuma habboona dugaag kuma habboona dad iska dhaafe waxaan ilaahay xukuumadayada ilaahay hani garab galo ilaahay hani gargaaro ilaahay hani ilaaliyo ma rabna inaad duntiin ma rabna inaad balaayo naga dhex dhacdo laakiin war dalka ilaaliya dalka sideed u garanaysiin inaad dad maantaan la dhibaataynayo sida aad qofka gartay dad la dhibaataynayo inuu dhibaato samayn karo qofka gartay wanaagana uu yaqaanaayo muxuu laakiin u garamaraya waxay ka dhigan tahay sida uu qofku xariif ugu yahay inuu xumaan sameeyo iyuu wanaagana xariif ugu yahay marka war dalka ilaaliya ilaahay hani garab galo aabba Ismaaciilow waxa kugu hoos dhimanaysa waa carruurtaadii waxa isdilaysay waa carruurtaadii waa inaad kala qabataa ummadaada waa inaad sharcigii adeegtaa sidaan marka horeba idhi hadduu Fuaad dambi galay aawe diintii aawe xeerkii dalka u yaallay aawe bini-aantinimadii aawe islaamnimadii wixii oo dhan maa la iska iloobay dee sidani si maaha ilaahayna garab galo hanana layga raalli ahaado walaalahayow haddii hadalkaygaasi qofuu dhibaya hadduu jiro laakiin
uguma talagelin maanta inaan dalkayga anigu ku daawado qalad uu galo iyo qalad laga galaba in qalad laga galana ma rabo in uu qalad galana ma rabo ilaahay hana garab galo assalaamu calaykum oo cajiib siday tani naga galay waan diidanay hubka muuqdayo urkooladaba waan diidanay dhamnaa darasal iyo beel lala dejiyo waan diidanay